dadka ugu diraysaa waa kugu diraa maxaan kugu diri waa dadku guri ma rabaano gobolada Soomaaliya meeqa goob ka tagtay wallahi meelo badan waa tagaane waaga playerka ahaa wili meelo badan tagay muqdisho inaan ka bilaabay ilaa Boosaaso aan tagnay oo wili baabuur aan ku tagnay haddana ka soo bilaaw afgooy ilaa iyo dhinacaas loo soconaayana ilaa iyo beedhabar ilaa iyo garbahaarey ilaa iyo meelo badanna waxaan ku tagnay basaska waa tuma heesta aad u jeceshahay heestaha Soomaalida oo dhan oo caawa kaalinta koowaad gelinayso oo bulshada halkaan caawa inuu la caawinayso aad u qaadayso hooydii adduunkaay nolosha ayaheeday tii lagu aamina nafteyday ha afhooyin hooyo heestaasaan jeclahay waa number 1 number 2 yaa ku ah number 2 ani wan leh haystaa tuu meeste ma hore waa u sheegay inaan xaas leeyahay ilmana aan leeyahay waa u sheegay haddana markii labaad aan ka hadlaayo waa laakiin dadka qaar way aaminsan yihiin inaan aabbo Soomaaliyeed ay way ogyihiin qaarkoodna ha i bartaan horey ma ogeyd inuu kabtan baara yahay ciyaartoy u soo ciyaaray xulka qaranka iyo Elman dhanka kale ma la socota inuu yahay aabba leh 7 caruur ah iyo atooraha jacaylka nin ay taageeraan bulsho badan oo Soomaaliyeed maxaad kala socotaa sheekooyinkiisa xiisaha fanka jacaylka iyo waliba soo galitaanka abraha bulshada markale waxaan ilaa halkan Hodman Show aniga waxaan Hodman Cid Geele ku soo dhawaada waraysi iyo qareexo iyo wada sheekaysan dhexmar doona kabtan baaro oo aad u xiiso badan horey ma u maqashay magaciisa rasmiga ah kabtan baaro waxa sharaf ah inaan kugu soo casuumo Hodman Show soo dhawow wadhawahay warjeenay ina maalin qayb ka noqon doono Hodman Show ama aragti barnaamijyada wada ma aragtay maalin ma aragtay laga dhex arki doono waa tahay waxaan ka baqay inaan dhahdid timekeygan ku imaado ana waraysi kala sameeyay oo kursi anoo ku imaado laakiin way iga qalayso thank you horta ka war arrintaas ma kadib lagu celiyo wallahi waxay ahayd waqti horta aad u qurux badan ay ahayd markaan ma aragtay meeshan ku soo baxay waayaba waa barnaamijkan ku soo baxay oo ma aragtay teamkeygan ku imaado anoo kursi wato barnaamijkaasna waxa barnaamij ma aragtay TV astaanka baxay qaraaxo ahay marka waxa waa aniga markii ugu horeyso markaas aan kursi soo qaatay ahayd oo ma aragtay ugu horeysay barnaamij oo ma aragtay serious ah in aan qayb ka ahay sidee lagu qanciyay si loo abaabul arrintaas wallahi waa horta wax markii la sameeyanayo dad ka shaqeynaayo barnaamijyada dad diyaarinayo dadka markay diyaariyaan waxay raadinayaan qof ku soo baxayo ama qof barnaamijkan is dhigi kara hore u sii wadi kara waayo dad badan ahaan markaas aniga waxa la arkay qofka barnaamijkaas ku haboonay maxaa lagu xulay waxa liigu xulay macnaha aniguna qofna ku xad gudbeenin inaad qaraxayn kartid inaan qaraxayn karo qofkina ma aragtay laga xanaajin karo مثلا qof marka ka xanaajinaysid toos ila asaga u yeertid ma aha waa in waxyaabo asaga ma aragtay ka hor iimaanay asamaysid oo qofkaas dib u geysanin dadnimo ahaan family ahaanba intaas dhibaato u geysanin qofkaas inuu xanaaqana ku qasabtid waaw ma lagu qanciyay mise markii barnaamijka lagu soo dhigay waa qaad barnaamijka aniga markaan bilaabay yara ila waday oo aniga inaan qayb ka noqdo asagana maalin qayb oo ka noqdo barnaamijka ugu horeeyay markaan sameeyay waxa la lahayd tan adal ugu faataxeena waayo barnaamijka ugu horeeyay markaan sameeysid dada jeekimaayo way fiirinayaan waxa waay ninkaan ku haboon asaga ha dhameysto marka aniga waa barnaamijka saasaan ku gaar waa tahay halkaas aan uga tageynaa sheekadii timekeygan ku imaado anigu aad baan u daawaday waxyaabihii aan markii waxayna ahayd social media Soomaalida la jaan qaadaysa digital media waqtigaasna waxa ku sheegaa waa waqtiga corona socday dad badan aan guryaha ku hayay waa la wada sugi jiray cajiib shaqo badan baad qabataa muhiim waa tahay kabtan baaro magacan xagee laga keena horta kabtan baara aniga horta social media aan ku isticmaalaa laakiin kabtanka wuxuu ka imaaday aan markii hore dadka i yaqaano ama asxaabta hore wixii i yaqaanaan baaruud kabtan baarana markii la dhaho waxa waaye waa aaladda aan ka xariiftamo dhanka YouTube-ka waxa igu qoran kabtan baara kabtanka wuxuu ka imaaday aniga waxaan ahay player of Somalia oo national teamka qayb ka ahay wax badanna ma aragtay sports ku dhex jiray markii hore waxa u dhili jiray naadiga Facaweyn Elman jaalooyinka koox kale uma soo dheelin kooxdaas anoo jooga haddana aan waxaan matalay qaranka Soomaaliya aan waxaan ka noqday haddana kabtan
dadka aan ka siinin social media ugu arkay shactirool iyo maleeyo aniga dhinacaasaan kasoo gala baasha ciyaartooyda nii fadhiyo meeshaan marka kabtanka qaranka aan ka noqday iyo ba'di iyo maaragtay iyo aada iyo ra'da isku soo darsaday baara kabtan baara official aan ka dhigtay marka waa magacaaga dadku reaction badan ma ka bixiyaan mise ku weydiiyaan wallahi waa dad yaqaano way jiraan asxaab badan macnaha maxaa ku keentay ma lagu dhahaa magacaan isku aruurintiisa wallahi qof idhahda ma laha waayo social media markaa isticmaalaysid adaa hadda hodman show kuu qoran show macnaha ma aha magac oo maaragtay oo adi aad maaragtay unique ama waalidka kuu bixiyo ma aha laakiin waxaad maaragtay barnaamijkaaga inuu show yahay oo meel iska qaraaxa oo yahay darteeda u bixisa anigana kabtankii meeshaan kasoo qaatay baarana macnaha magacaygaan jajabsaday ma arkin waxaan ii tafaariiqay camal magacaygaan iska jajabsaday wixii anaa iskale laakiin magac hooyada aabaha ku bixiyeen muxuu ahaa magac hooyadii aabahay ii bixiyeen qaasim waaye qaasim waaw dadka ay ka siinin oo lacalla hadday noqoto hodman show inta ay kusoo fadhiisa magacaan sheeg lacag ku qaada hadday ku dhahda baraada ka daadsa qaasin aa lidhahaa dadka ay gu diraysaa waa kugu diraa maxaan kugu diri waa dadkan guri ma rabaano okay binte miya waa saxanta waa tahay bal ka waran caanimada aaladan ku jirto dad badan baa ku raaca 1 milyan buu ku sii siqayaa youtube-kaagu si fiican bal iga waran nolosha caanimada horta nolosha caanimada marmarka qaar waxyaabo badan ay ka saacideen in bulshada magaca ku yeelatid meelaha qaar markaa maraysid in maaragtay si sharaf leh u gudubtid wadada qadarin badan waxyaabo badan aad maaragtay social media qofka ku jiro oo kala kulmaa haddana social media wuu kala baxaa qofba dhinacu ugu jiraa haddii evan ee dhacdo adiga inaad maaragtay qof social media qaab daro ugu dhex jiro ummadana kuma jeclaanayso xiiso goonina ma yeelanaysid sharaftaadana way dhumeen marka waxaa waye social media haddaa ku jirtid waxaa lagaa rabaa gadaasha inaad akhrisid micnaheyga waad dareemi kartaa gadaasha markaan ku dhahayo maanta haddaa social media ku jirtid ama aabba aad tahay ama nin familkiisa mar walba ama naftaada ixtiraamaysid social media waxaa lagaa rabaa xasilooni inaad ku joogtid ani kabtan baar ahaan waxaan isku arkaa dadka xasiloonida ku jooga dadka kale laakiin waxay ii arkaan aan ma sheegi karin laakiin ani danta maandhadaas waa tahay weligaa game tiktok ma ciyaarta ma lagu soo dhejiyey reebel ma ku ciyaartay gobol hebel ma ku ciyaartay ana horta social media waxaan xoog saaraa horta youtube-ka tiktok waa leeyahay tiktokna barnaamijyadeyda qaaraan iska dhigtaa waxaa kaloo soo haray tiktok live ah dadaa ka bariiseeyo aniga maalin guriga ma gelin mid aan saaxiibna wuxuu dhahay meeshaan waa laga qadeeyaa tiktok-ga ani waxaan dhahay quraxda igu filan youtube-ka qadadiisii gaarsiinaya quraxda aa cuno youtube-ka ii gudbinayaan dhaa qadada marka waxa waaye aniga waa tiktok live macnaha wax oo gooni oo hadda ani qof aan maaragtay ku dhahayo wax xun ay ku dhaxsanay ama qof waa saas waxay ma dhahay laakiin ani ahaan fikirkeyga inaan live dheeli iyo inaan dhaho saas iyo ani ma jeceli laakiin waa ku qaraabtaa tiktok waa loo waxyaabo kale iska dhigtaa ma dhanka game-ka hadda ka hadlayna dadka dhan baa wada leh laakiin ani game ma dheelo arjima kaga jirtaa mustaqbalka inaad dheeshid wallahi maya aniga inaan koro asxaab aan la qaraaxaysto oo without game caadi laakiin inaan koro ama mustaqbal wax aan ku fikirayo ma aha waa tahay soomaalida social media ma ka faa'iiday mise waa ku khasaarta aragtidaada wallahi waa dadka qaar way ka faa'iideen dadka qaarna way ku khasaareen waxa waaye dadka ka faa'iiday waa dadka maaragtay sida hore kugu sheegay xasiloonida ku joogo dantoodana yaqaano laakiin social media sida adiga iska dhigtid waaye haddaa rabtid inaad iswaashid oo magac iswaal aad ku raadisid waa ku tegey haddaa xasilooni rabtidna dad badan oo xasilooni ku joogo dhaqmi weyna way jiraan caanimadu ma keentaa farxad farxad way keentaa marna neerfay keentaa marka halis aa geshid camal oo ma aragtay oo dadka dhan ay ku dhahan ninkaan nin xun waaye adiga aad dareentid inaa qofku xumay aad tahay xogaa laakiin markaa meel maraysid qadarin xushmad muhiim maaha social media ku jira lacag waxaan raba aan ka sameeyo muhiim maaha laakiin waa inaad dad beerataa way iska imaaneen waayo aniga social media inta aan ku jiray waa u yaraan adiga 6 sano waa 6 sano wallahi qofna wiligay abuse kuma sameyn ana liguma sameyn qofna kuma xadgudbo laakiin waxaan u arkaa meel hadda deganaan ku joogto dadka ay ku jeclaanayaan ku jeclaan adigu wax kasta aad ka abuuran kartid
waa tahay meeqa safar oo dalka Soomaaliya gudihiisa ayaad gashay intaad social media ku jirtay wallaahi horta aniga muqdisho intaan joogay oo muqdisho dhexdeeda aan meelo kale aan aaday wallaahi waa maya ma u badneen uma badneen laakiin way dhacday mar inaan maaragtay diinsoor dhinacaas inaan aado gobolada Soomaaliya meeqa goob ka tagtay wallaahi meelo badan waa tagaane waagaan playerka ahay weli meelo badan tagay waagaan playerka ahay muqdisho inaan ka bilaabay ilaa Boosaaso aan tagnay oo weli baabuuro aan ku tagnay haddanana kasoo bilaaw afgooye ilaa iyo dhinacaas loo soconaayana ilaa iyo beerdhaban ilaa iyo garbahaarey ilaa iyo meelo badanna waxaan ku tagnay basaskaas waagii ciyaartooy ahayd waaga dawladda maxamed sabar mustaqbal aan cadeeyay waa waagii oo intaas kabtan waagu jawi iska deganaayo waay xagaad jeclaan lahayd inaad ku noolaato meel haddaad rabtay inaad meel Soomaaliya ka baxsan ku noolaato wallaahi qof walba horta nolosha meeshii kugu imaado oo ma aragtay oo calafkaaga oo noqda ku noolaane laakiin haddii aniga kabtan baara ahaan keligay ma ihi aniga kabtan baara ahaan waxaan jeclaan lahay familkayga meel ay xasilooni ay u arkaan ama degnaashadooda uu ku jiro ilaa muqdisho ka dhigataa inay meel xasilooni iyaga ay ku helayaan ay ku qanacsan yihiin inaan ku noolaado marka wax duubaysa energy badan iyo farxad baa ka muuqata muuqaaladana isku soo daba dhacaan horta adiga yaa ka caawiya energy-gan iyo farxadan horta farxad ilaahay xaggiisa jirtaa horta kow midda labaadna waa horta xaas qurxoon ama ma aragtay qof garabkaaga haddii aa haysatid waxa waaye energy-ga qeybay ka tahay waayo haddii aa guriga ka dhisan tahay energy kuu dhiman ma laha waaw oo dabcan xaas lahaatay aabaata waaw halkaa nolol qurux badan baa ku jirta oo xiiso leh xaaska wanaagsan intaan taa u gelinin xaaska wanaagsan ninka ragga maxay ka caawisaa wallaahi wax loo baahan yahay horta boonta loo baahan yahay waa in la isweydiiyo weli waxay ka caawisaa nafsadiisa in uu ku kalsoonaado in uu meel ka soo baxay ama in ma aragtay heer uu gaaro ee qayb ka noqonaya waxay kaloo qayb ka noqonaysaa qof walboo dhalaalayo xaaskaa sabab u ah nin walba waxay sabab ugu tahayna wax kale ma aha mar walba wuxuu u sheegay wax asaga u wanaagsan markii wax asaga u wanaagsan u sheegto waa iska taqaanaa ragga markii wanaag loo sheego qofna wanaag u qaataa أنا دتك وانا قاطع هاي سوى فاميلكي مركو wax ii sheegay marka rab inaan wax sameeyana waa la tashtaa wax walba ila soo gudboonaadan waa la wadaagaa way meeshas waxa iiga soo bixayso wax aad u wanaagsan marka fikirkii ugu jiro aan waxaana raba inaan ku dhaqaaqo waxyaabo qaar way iiga celisaa wixii aan u arkay inuu wanaagsan yahay waa ku dhaqaaqaa waaw adiga xaaskaagu maxay ka caawisay caanimadaada nin caan la wada yaqaanaa tahay wadada 1 milyan baad oo followers dad ku dhadhow waa ku raaca youtube-kaaga adiga shakhsiyan maxay ka caawisay xaaskaagu xaaskayga waxay iga caawisay horta farxadu sidan kugu sheegay hore farxadayba isii magacaaga waxaan ku leedahay magacayga qayb iyada iskale haddaan ku dhahaabo qayb iyada iskale kabtan baara lagu sheegayo guriga waaye sababtoo ah meel waxaan iskala soo bilownay hoose maanta alxamdulillah waxaan joogaa meel aan ku qanacsanahay taagana wixii kalena ilaaha u deenayna ilaaha naga saaciidi doono qayb hoose igala soo bilowday qof hadduu qayb hoose kala soo bilaabo uu kuu soo sabro waxa waaye noloshaada qaybay ka qaadatay waaw ajiib way haye ilaa waa aragtay guri markii la dhisaayo waxaa laga soo bilaabaa aas-aaska laga soo bilaabaa ilaa guriga oo ka qorxoonaado xaalad walba ila soo martee marka qof xaalad walba kugu soo sabray noloshaada qayb ay ka qaadatay garab weyn ay ku tahay maasha Allah meeqa carruur idin joogtaa alxamdulillah waan dhaqanahay 7 carruur ay dhashay mid kamid ah waa iga saqiiray laakiin 6 carruur ay joogto 3 gabdhood iyo 3 wiil meeqa sana familtihiin maasha Allah
wallaahi waa u yaraan anigeeda waxaa isla joognaa ilaa 17 sano. sida saa isku barateen iga sheekee waa sheeko xiisala weeye saan isku baranay haddii aan ku dhaw waa ka sheekeenaa anaad inta kama tegeeno waayo qof ardaya ahayd wax baranayo anigan markaas waxaan iska nin iska sportis ah wadaan u maray xaaskayga inaan isbarano wadaan u maray waa ogtahay maanta qofka aa u baahan tahay marna adaa toos u weeraraysid marna wadaan u maray qof iska afgaaban oo wax baranayo aqoon ilaahay siiyeed ilaahay wax badan waa ii fududeeyay ugu dambeynta inay xaaskayga noqoto ilmeyga hooyadooda noqoto calafkii aan isku keenay 17 sano wada joogtaan waa qofkii ugu horeeyay aniga aan guursado oo aniga aan guursado guur kalena aan soo marin qofkii ugu horeeyay aan guursadaan la joogaa caruurtaasna ii hayso waxaan rajaynaysaa isku dambeysay weligiin inaan la guursato ma laga yaabo waxaa la dhahaa raggu markii meel hoos laga soo bilaabo u kala kacdo caan noqdaan oo siyaasadda galaan oo lacag helaan oo islaantii hore waxay dhahaan walaa wejigaaga waa xasuusta walaa hadda laakiin kuma xasuusta si fiican kuma xasuusta horta mid taama burin doonaa baaro oo ka soo bixi doonaa ballantaas horta hodman waxaan kuu sheegaa nolosha hal qof waxaa ka dhigan kartaa 100 qofood marka reality aan ka wada hadalna waayo aniga xaaskayga 100 iyo ka badan ay u dhigmataa damac kale oo hadda gooni ugu jirana ma laha waayo maanta aniga 6 caruur ay joogto 6daas caruur waxay iga rabaan nolol waxay iga rabaan waxbarasho waxay iga rabaan inay asaagooda wax la qaybsadaan waxay iga rabaan facooda inay u qurux badnaadaan taasna waxay iga saacidaysaa in aniga xaaskayga 100 qofood aan ka dhigtaa iyadoo kaligeeda inay 100 ii noqoto oo meel kale aniga aan fiirin damac kale gooni aan igalin sababtu waxaan u dhahay waxay tahay waxaan u orday aniga waxay ahayd ilmana iyo jacayl inta waa haystaa waxa hadda aan raadinayo oo ma aragtay xaaskayga inaan xaas kale la guursado aniga ma u maleynaa inay wax ugu soo kordhinayso dhanka kale markaynu ka eegno nimanka caanka ah ama dadka caanka waxaa loo yaqaanaa maaragtay iska ehel shukaansi ah suuqa isaga jira maaragtay tan furtan guurso tan siidaa tan arag tan raac arrintaa ka war ana horta caan waa ahay qof walbana waa i yaqaanaa laakiin waxaad ogaataa shaksi walba oo caan ah wuxuu asaga iska dhigo noqonaa maahane wax dad ka dhiga ma noqonayo aniga shakhsiyadeeda nin ahlul iimaan ahay waxaan ahay nin ilaahiisa ku xiran waxaan ahay nin ahlul salaada wixii u fiican iyo wax u xun yaqaano ninka ani maanta haddaan sameeyo qof aan guursado waa furay qof aan guursado waa furay micno ma ii sameynayso nolosha macaanteeda waxaa arki doontaa qofka markuu hal qof helo halkaas qof noloshiisa qayb ka ah awlaad baari ee u dhasho walaa nolol kale inuu damceynin waayo sababtoo ah meesha u socotid aa ku dhammaanaysid waa cajiib weeye ilaahay isku kiindaaday marwadaada qiimaha badan weligaa social media kuma arkin familigaaga aniga adigu asxaabta muddo is yaqaano walaalahan nahay horta waa runtaa aniga mana dhici doonto wax hadda la sugaayana ma aha in aniga xaaskayga iyo caruurteyda social media aan la imaado wax liga sugi doono ama wax dhici doono ma aha sababtaan u dhahaya waxay tahay social media anaa ku dhex jiro anaa ku dhex rafanayo anaa ugu filan banaankaas ay ka joogaan sababtay banaankaas ay ugu joogaanna wax kale ma aha maanta waxaad ogaataa haddii cunugaaga cunug ka mid ah social media keentid kan labaad keen committeega lagu soo qoraa ka saddexaad keen ka afraad keen ka shanaad hal maal noogu tuur ah ka dhacaysa xaaskaaga soo fadhiisay cajiib anigana marka qof walba go-aan uu leeyahay ama dadka isqaba social media ku jiro ama dadka isqabin oo social media banaanka taagan aniga waxaan ahay nin familkiisa xindab ugu jiro u daboolan meel u yaalo waayo familkayga waa ka ilaaliyaa social media ma sameeya hataa markaa aniga wax duubaya hataa kama hadlo waa markii ugu horeysan u maleeyaa heerka aad caawa ka sheekay hore waa u sheegay inaan xaas leeyahay ilmana aan leeyahay waa u sheegay haddana markii labaad aan ka hadlayo waay laakiin dadka qaar way aaminsan yihiin inaan aabbo Soomaaliyeed ah way ogyihiin qaarkoodna ha i bartaan in nin laga daba jiitamayo inaa ahay marka alxamdulilah
maxaa qoysku inay isku waaraan oo wada joogaan waliba iyagoo dhalinyaro intay isguursadaan nolosha meel kala soo bilaabay meel wanaagsan gaaraan maxaa dhiirigeliya secretka caawara sheeg anaa kuu sheegayo haddaa arag dad isku raagay ama caruur ilaahay wada siiyey oo maaragtay diyaarsan ama aqliyan ama wax walba ee noqoto waxaa isku waaraya ama iskula joogayana waxay tahay ismaqal inuu jiro kalsooni inay jirto kala dambeyn inay jirto iyadana eena ma aragtay aada ka dhigin gurigaas in caruurtaas ay shaqaalo u tahay aada ka dhigin oo maanta xaaskaaga waxay kaa mudan tahay inaa adiga aad taqaanid ma fahamta kalsoonida meeshaasay ka imaaneen dad saaxiibaa nahay iyadoo xaaskayga tahay saaxiib nahay marka saaxiibtinimadu dabcan qoysaska way dhistaa way dhistaa waayo wax ma kala qarsano ama nolosheeda ha noqoto ama wax igu soo gudboonaada ama waxaan raba in aan sameeyo waa la wadaagaa kadib waxyaabo badan oo aan la wadaagay oo aan arkay inay iska dhaaf idhahday oo waxaan arkay waxay iska dhaaf idhays wax fiican inuun ahaynoo wanaag ay iyada dhankeeda iyaga imaaday marka familka markay isku tala darsanayaan ama maaragtay ma aaminsan tahay qofka qalbigiisa ninka ragga qalbigiisa inuu u qaybsami karo 3 iyo 4 gabdhood iyo meelahaas 2 iyo qof walba soo iska dhiga waa wareysigiina wuu ku jiray hal qof oo dhowr qofood ka dhigi kartaa waayo maanta qoftaas waxay u baahan tahay aniga wallahi waxaan taageersanahay kabtan baara ahaan qofka xasilooni gurigiisa ku joogo reerkiisa ilaalsado caruurtiisa ilaalsado maanta damaca ku galay go'aamo qaar aa qaadatay go'aamihii qaar aa qaadatay midaa ku waalatid oo noqon karaa waayo guri degan haddaa geshid meel kale aa geshid waa inaad adiga xaquuqda aa saxdaa wax walba aa ka dhigtaa qoftaan xaqi kugu leedahay qoftaan xaqi kugu leedahay haddaa waxaaga dhan aa kusoo koobtid xaqa dhan qoftaan cadaalad maada sameynin cadaalad ma sameynin laakiin aniga waxaan u arkaaba hal qof inuu kaaga badan yahaba dhowr qofood aad iyo aad marka baaraca meel fog buu ka xabadaritay marka waxaan rajeynayaa gabdhaha inay taageeri doonaan talooyinkiisana ay rag u qaadan doonaan waa tahay haddaynu dib u milicsano waaye badan ka hor noloshaadii caanimada ka hor sidee bay ahayd wallahi waa noolayle nolosheeda caanimada ka hor waa noolaay sida hore kugu sheegana waxaan ahay player iska ahay ciyaara iska ahay ciyaarta kadib baroni ama sii soconayo waayo shaqooyin waa haya social mediana waa ka xariiftamaa ma fahante marka alxamdulilah waa maxay shaqooyin kale caqabatid wallahi waxaan la shaqeeyaa astaanaan la shaqeeyaa social mediahan wax aniga ii gooniya waaye oo aan ka xariiftamo oo maaragtay shaqo kale ma qaban lahayd haddii hadda lagu dhaho ama dukaan yeelo ama waxyaabahaas oo kale maqaaxi adduunyadaas kala dalo businesska dhinaca ka gal samayn lahayd wallahi waxaan kuu sheegaa horta qof walboo noola ah horumar wuu jecel yahay waxyaabaha aan ku fikiraayo ama waxaan hadda aan maaragtay aan ku dhex jiro wax ka sii fiican oo maaragtay aan isdhihi karo business waxyaabahay ugu borgaraamsan waaye siyaasadda ka war wallahi siyaasadda dadkan hadday siyaasad aadaan wax badanaa isku qasmaayo marka aniga siyaasadda xoogaa maaragtay waa liiga fiican yahay waayo soomaalida hadday siyaasi ay wada noqdaan waxa waaye isfahankaa yaraanaya marka qaarba meel in loo daayo waa siyaasiga naftiisa inuu qosla la raamahooda yaa ka qosol siinaya qosol u baahan kooxa ciyaara ee adduunka caalamka dhan ciyaartooyda kooxda taageerta aniga waxaan taageeraa koox Arsenal ay dhahan The Gunners Arsenal taageera Elman taageeraa kooxdeeda cajiib inta aanan ku weydiinin dharka kalarada ugu jeceshahay hadda koor social media waxaan ku arkay baaro uu dhig kala baarkiisanayo abba wehel maamin dadku wehel maamin maxsuusinay sax miya wala soo qarxiyay marka horta dharka kalarka ugu jeceshahay inay xiriirtay baarintaas oo kale iyo daba dhig wallahi horta dharka aniga ii kala socno laakiin aniga badanaa dharkayga balaaga u badan laakiin dharka marba noocu ku soo weeraraa qaabilay ma fahantay qofa dhar adiga dhooca aad jeceshahay haddii ay sheegtinina dhar wuxuu kuu keenay adi aada jecleen laakiin dharkii inay dhar qiimo ay yihiin ama dhar fiican ay yihiin oo asaga ahaan kugu soo kortay dharkaan mara wax badan ay kaa celinayaan ani dharka ima kala socno laakiin midabka madowga maaragtay
aadan u jeclahay aadan uga helaa barnaamijkan kale oo maaragtay hudheeda ay soo dhexgelisan oo anoo xariiftamaya garbaati iyo xireen way dhacday aniga dharkeyga waxaan u sameeyaa iska horta macnaha baabuurka hadda ma laho lug bedel iyo wax ma laho aniga hudheeda waxaan ugu dhigtaa kaba ugu dhigtaa bedel oo ii yahay lagama maarmi karo waayo dhig joojin dhig joojin ahaana u isticmaalaa hudheeda mafaada muuqaalka ka waran ma ku saameeyo horta iga sheekee wala horta muuqaalkaas markii laysoo dhigay waxay ii soo saarataa qayl dhan waa warhay ana qalad maan galay nin hudhay ka qaraabanaya qayl dhan waa warhay loo soo saaraya ya ha waa lagaa garbaxa hataa waa lii dul saaray marka ilaah amarkiisa hudheeda maalintaas aniga waa soocanaye dadka waxay soo qabteen hataa kuwa aan ka helay jilbahan ku qabsanayay kaan ka helina waa tuuraay ilaa waa aragta baasta hadda markii la miiraayo biyaha seewa weedaada wix fiican waa reebareebo marka aniga wixii kale waa iska tuuraay qaarka jilbaha aan ku qabsanayay iyo kaamirada isqabatay ani ma arkin meeshin waa ku dhex raftay ani been kuu sheegay hudheeda si fiican ugu dhex raftay mar jilbahan dhulka u dhigtaa taa macnaha soocitaan fiicanaan galay ana marka isma dhehaynin aan waxaan arkay social media anoo garbaati iyo xirayaan hudheedana saas u fatashaay marka ya may garbaati hudhey ma ahayn labiskayga horey soo qaateen anoo labisanoo suud ku labisan meesha kusoo dhejiyeen anoo hudhey ka qaraabanayn meeshay keeneen ani marka waa wax oo ma aragto culeys uma arkin waayo aniga nafteedu waxay u baahan tahay qofna kalama tashanaaye stiil waa ka qaraabtaa ani xura ah stiil waa ka qaraabtaa hadda kahor waxaan waraysi ka qaaday nin arrimeen runtii aad aan u jeclahay intaan ka salaamaya saaxiibkii walaal qaali wey marka hadalkii ugu cajiibsanaa oo fayralka tidoo ka noqday wuxuu ahaa waxaan ku iraahday haddaan ku dhaho maanta moolkan kasoo labiso ranocee qaadan lahayd maxaa qaadan lahayd si kalsoonidu halkaa labada qanjaa joogto oo wejigiisa laga dheehan karo ninkaan inuu kalsooni ku labisan yahay buu wuxuu u yiri anigu hudheydaan ka labistaa I don't want inaan mool ka labisto uma baahni aniga sabab baan iri wuxuu yiri dharka anigu aan xiranayo in dadka kale lagu arko ma jeceli marka farxadeedu waxay ku jirtaa dhar aan qof kale xirnayn inaan anigu xirnaado marka taasna aad baa uga helay caawna waa u jeedaa marka waxay muujinaysaa qofku inuu wuxuu asagu farxad ku dareemayo oo samaysto oo uusan dadka hadalkooda raacaynin ma jiraa inta social media ku jirtay hal khalad oo kaa dhacay oo maanta shalaynayso wallahi horta mayaan dhihi lahay sababtoo ah ana waaba iska ilaaliyaaba sida hore kuugu sheegay qof walbo is ilaalinayo waxaa ogaataa naftiisa iskuma ilaalinayo waayo aniga sababtaa isku ilaalinayo aabbaa ahay ilmihayga iskuulay aadaan dugsiyay aadaan waxaa muhiim ii ah in asaagooda ay dhahaan aabbahaaga qof fiican waayo in lay dhaho ma jecli aabbahaaga qof xun waayo waxaan u danqanaya aniga shakhsiyaddeeda ma aha ilmahayga mar walba waxaan ka ilaaliyaa mustaqbalka ubadka adigu adduunka sababta oo inay yimaadaan oo inaan iyaga aan ka ilaaliyaa inayna dadka ii arkin aabbo xun inaan ahay ciyaarkayguna aysan farxad la'aan dareemin ay dareemin laakiin aabbo wax walba qasaya haddaan noqdo ilmihayga iskuulka markay aadaan ama dugsiga ay aadaan waxa waaye facooda meel lama fadhiisan karaan marka ani mar walba waxaan fiiriyaa gadaasheeda markii laga taga xaaskaaga iyo familigaaga waa kuma qofka kaa support gareeyay ama kaa caawiyay inaad magac samayso aan noqoto wallahi sida hore kugu jirta aniga familkayga koobay ka yihiin marka laga taga iyaga hooyaday macaanta iyadana waxa waaye waa halkaan ka salaama hooyo familkayga ku jirtaa aniga saaxiibo wanaagsan aan leeyahay yaa kamid hal iyo laba caawa wallahi horta aniga waad xusaysaa saaxiibada aan leeyahay horta way tiro badan yihiin hal iyo labana ma dhihi karo waayo ani dadka waa samaystay qof walbo wanaagsan aniga saaxiibkeen waay hadduu ikasaayo ama hadduu ikaseeninba qof walbo wanaagsan saaxiibaan la ahay xaafad markaad joogtidna dhalinyarada waxaa jiro way kala duwan yihiin aniga qof waa isku dhaxayaa marka maanta qof shaksi gooni aan tilmaamayo ma laha laakiin saaxiibadeeda team sportska inta aan kala soo bilaabay team social intuu ku jirtaba waa dad maaragtay aan respect u hayo anigana mar walbana maaragtay yaad abaal uga haysaa magacaaga reerka familka magacayga abaal waxaan ugu hayaa horta aniga waalidiinta ay dhaleen waayo aabbey alla u naxariisto laakiin hooya ii joogto waayo hadday iyaga dhali lahayn magacaan
iyo maaragtay waxaan dhan ma imaan lahayn shaxshaxdan ma jiri lahayn sidaan hore kuugu sheegana way iska jiraan maaragtay dad magacayga qayb ka ah familka markii laga soo tagan inaa aniga sportiska markii aan kasoo baxay kambaniga aan la shaqo bilaabay astaanna magacayga qaybay ka yihiin waayo dadka sportiska iyagoo i yaqaanaan iyaga waxay sabab u noqdeen barnaamijka hore aan uga hadalnay inay igu aaminaan magacayga dadka wax kasoo dhisi aada iyo aad bay runtii cajiib u tahay ma jirtaa mid kamid a qisooyinkii kaa soo maray caanimada oo caawa aad bulshada la wadaagayso dhalinyarada soo koraysa waayo aragnimo u noqon kara ama waxun ka saacidi karaa wallahi horta aniga qiso gooni ah oo social media aan kala kulmay xaqiiqa wallahi inayna jirin aniga inta hal wax bisaan rabaa inaan ka dhaho qof walbo asaa wax walba saameyn asaa lugiis ku raadsan karo aniga inta social media ku jirto waxaan dhihi lahay haddii hore wax kaaga dhacay mar labaad yoo kaa dhicin is ilaali social media markaa ku jirtid fayuuskiyoo kaa gelin meel qaldan sharaftaada ku iibsan sharaftaada ku iibsan social media gaalka lahayaa waalan karo youtube waa bixi karo ninka lahayaa waalan karo wax walbaa dhici karo laakiin sumcadaada marnaha bahdelin oo ma aragtay wax dadka aan jeclaysanayna ha sameynin aniga waxaan aaminsanahay qofka asaga inuu wax walba iska dhigi karo aada bay cajiib u tawaanadaasi ciyaartii baan aragnay labiskii baan aragnay jacaylkii baan ka sheekaynay bal adiga iyo fanka iyo suugaanta siday isku tihiin waa dhex adoo heesaya inta daawaday habeen dhan baa kusoo jeeda heestaada horta waxaan kuu sheegaa ana horta familiyaan dhihine fanka horta aniga farciina hore uma soo heysin aniga kabtan baaran horta waa iska jacbursadaa dada ii arko in ma aragta aan heesooyo oo hees aan qaadayo dadna waxay u arkaan qasaalad in ma aragta meel wax lagu dhaqaayo camal inaan iska qaylinayo waa dadka isku joosna maaha dadna codkaagi waxay dhihi karaan codkaan wuu fadhiyaa dadna waxay dhihi karaan kabtanka oo meeshaan isku soo gelin ha qofka siduu kuu fiiriyo laakiin ani fanaan ma ihi laakiin fanaanaan saaxiib la ahay fanaaniin saaxiibaa la ahay ha waa tahay waa tuma heesta aada u jeceshahay heestaha soomaalida oo dhan oo caawa kaalinta koowaad gelinayso oo bulshada halkaan caawa inagula caweynayso aada u qaadayso anaa og in social media aada lagaaga jecel yahay hooydii adduunkaay nolosha ayaheedaay tii lagu aamino nafteydaay ha aafooyin hooyoy heestaasaan jeclaay waa lambar one lambar two yaa ku ah lambar two ani wan lay haystaa tuu meyste inta kale haa heesaha hooyooyinka maaragtay loo qaado aan aada u jeclahay heesahan kalena waa heese iska maaragtay motivational maaragtay la iska dhegeysto fankii hore iyo fanka hadda yaad u tahay fan yaad taageero u tahay horta waxaan kuu sheegaa wax walba waxay kuu dhiibaan kuwa horena maaragtay waxay ahaayeen waa wada ognahay qofba qof waa wax lagu reejina waxaan jiil waay jiilka markaas jiray oo heesihii hore ah heese oo waxay ahaayeen oo dareen leh heese waxay ahaayeen wacyi leh wadaneed leh kuwa guwaabinaya inta way jacayl leh hadda heesihii jaceyl iyo raab iyo adduuna iska qaateen wacyigelinta way ka yaraatay ma fahamte marba cimiladaa ku xukunto iyo maaragtay sidoo dabeesha meeshay u socoto waay hadda waxaan la haysanaa meesha dabeesha u socotaa aan la soconaa waa tahay raabka si isku day raabka ka hor raabka waa marmarka qaar waa iska dhegeystaa yaa taageertaa qof taageer gooni ma jirto laakiin raabka hadda dadka la isdhihi kara raabka waa aaday ugu fiican yihiin ilka qays sharma boy waa macnaha dadka la isdhihi kara hadda raabka waa way u fadhisaa waay xidigihii raabkaas sheegtay xidigaha raabka soomaalida ragga adduunka raggaas anaga adduunka nagu baalkeeyo ma fahmi kuwo kalena way jiraan oo ma aragtay iyagana sidoo kale oo dab yarshideenin laakiin awowayaashood baa jooga laas awowayaashood raabka markii la dhaho raab dhankaas waay heesahaba kala baxa kuwa raab waaye kuwana ma aragtay iska heesa ma aragtay fanaaniinta hore yaa ka taageertaa kuwii hore ay fanaaniinta hore xase aada samatar waa tuma heestiisa caawa inoo soo qaban karto mid kamid a erayadeeda wax yarta haato balad weyn allahayo alqabtaas heestaasaa ma aragtay heesaha oo ma aragtay xase aada samatar qaada barku seexanayso huwanaysa baalo fanaan ma noqonin
ya makaa buuxsamay waa kasoo laabatay waxaa dhaa noocaan ma loo baahno isku mid aana isku mid aana oo intaa fanaan oo showga lacag ba kusoo galeed miya intaa fanaan noqdo wallahi waa dad oo ku camir mala weeleen wal aniga hadda ka hor inaan fanaan noqdo damcay waagii dawladdii waxay ahayd amaleynayaa alla naxariistay aadan cadde wadanka nabad buu ahaa joog waa deg abahay okay ma xal marka tartanka ka dacana ka qayb galay heesaha hirgal soo istaagay waxa la igu dhahay noocaan mal rabo gudub lagu dhahay markaas aan qoosatay ha waxa lagu yiri wax kala raad askarta iyo inaan ku biirtin iyo saxaafadda iyo arrimahaas fankana ma aragtay dad asxaab badan aan ku leenahay oo maanta inta fanka aan ku leedahay asxaabta tiraday ka bateen anna sidoo kale marka asxaabtaas inaan u deynaa dhul ku cariirina roon labadeena aan banaanka iska joogno waxyaabo kala hadda ka hor waxa laga qoray kabtan hadii lacal fanaan noqon leed si yeelay waxaan dhahay hadda fanaan noqon lahaa arooska maraabacan ku heesi lahayd labada qofood inaan u heeso markii ilmo ee dhalaata aan joogo lacagta iska dhiibaan waa dad aan awoodina jirto ma laakiin garab in la sii u baahan marka aan maraabacaan ma waa maraabaca waxa oo iska yareena ha qiimo dhimis oo sameeyana taa ninka ugu horeey fanaan qiimo dhimis sameeyaa noqonaa ma fahanti ma noqon ha qiimo dhimis marka waxa waaye waa fankana dhinacooda ha ka wataan asxaabteena hore u socdaan aad iyo aad u qosol badan tahay caawo sheekadaani intaan aan gabagabaynin teebay noqonaysaa maalinteena noloshaada ugu farxadda badneed kabtan baara maalinta nolosheeda ugu farxadda badneed waa maalintii gabadheeda curada ay dhalatay maalinta ka salaama nadro ilmeyga inkastoo aan kulli wada jeclaa laakiin maalintaas ka waran dareenka aabanimada maalintii kuugu horeysay farxad maalintaas wax ii dhinnahay ma laha waayo waa markaan ogaaday inaan ma aragtay akhba aan noqday nasiibkayga qayb ka mid ah gabadheeda curada cajiib dhanka kale markii farxad la arko waxaa kasoo horjeeda murugo maalintee bay ahayd maalinta aan maskaxdaada ka bixin ee kuugu murugada badnayd dareenkeeda ayadana xambaarsanayd anaa ka xun inaan ku weydiiyo ma jecli dadka inaan qalbiyadooda in badan dib u celiyo wallahi maalintii murugtii igu badneyd ee ahayd waxay ahayd maalintuu aabahayga dhintay ilaahu naxariisto aabahayga wuxuu ahay saaxiibkay wuxuu ahay qayb aniga mida aabba aad ii jecel oo ahay marka qabrigiis waa sac allah ugu dhigo xariis janna allah ka waraabiyo aad baa uga xumaa inaan kusoo xasuusiyo waa loo baahanyahay qof walboo noolaha waxaa ogaataa in wax un maalintaas maalmaha ka mid inuu ma aragtay wax sahmeeyey ma fahantay marka alxamdulilah maanta booskiisa anaa buuxiyey anaa aabba noqday wad ayuu ka tagay ubadkana anaa maanta haayo oo ma aragtay wax baray adaa gacan walaalahaba kornaysaa waxa waaye aniga booska aabahayga allah u naxariistay iyo booskayga inta waa buuxinooya mise jir baa ahayd markuu aabaha dhintay wallahi markuu aabahayga dhimanayay gabadheeda curada ah markaas ii dhalatay adiga waa gabadheedan markaas xoogaha soo socodii waxa way bilaabaysay marka maalin waxay iska ahayd mataqaanaa oo murugteeda wadato laakiin alxamdulilah waayo ilaahay aayadiisa qur-aanka wuxuu ku dhahay kulli nafsu daqatul mawt naf walba way dhimanay marka waxa waaye ilaah u naxariisto maantana ma aragtay annaga taa meesha noola soo jira ilaah annagaa nool maanta laakiin berri waxaa hubaala qof walba geeridu inay gurigiis hortaagan tahay aabihiis hooyadiis walaalihiis oo qof kasta uu jecel yahay aabbo dadka familiyadooda dhintana waxaan leenahay sabr imaan ilaah naga wada siiyo qabrigoodana waa sac allah ugu dhigo intaana soo xiranin baarax xagee ku dhashay aniga waxaan ku dhashtay garbahaare muqdisho waa kusoo barbaarle koritaankayga muqdisho laakiin aniga garbahaare aan ku dhashtay adoo meeqasan jacaan baa kasoo tagtay maxaa ka xasuustaa garbahaare waa inaan ku dhashtaan ogahay laakiin xasuustaada waa iska muqdisho waqtigayga muqdisho ahaa laakiin inaan garbahaare ku dhashtay taasaan maaragtay aan ogahay cajiib
intaan maxaad u sheegaysaa bulshooyinka Soomaaliyeed fariin meel ka wada taabanaysa dhanka wadaniyada dhaqan wanaaga akhlaaqda walaaltinimada maxaad u sheegi lahayd caaw inta wax kale kama dhihi lahayn horta Soomaali meel walba ay joogto waxaan leeyahay ilaahay qalbigooda isku duubo wax walbo anaga wanaag noo eena ya ilaahay hana wada siiyo waxaan kaloo dhahaa dhalinyarada ama dadka ma aragtay maanta dalkan mustaqbalkeena waxaan leeyahay aqligiina ha shaqeeyo mar walbana wanaag meesha taal ma aragtay waxa laga raadiyo Soomaaliyo mid ah anagoo ma aragtay dalkeena ma aragtay isbedel badan ka dhacay haddaba isbedel waa haysanaa in ilaahay oo noo kaso ilaahay wadankeena noo ilaaliyo aad iyo aad bay farxad igu tahay wareysigan shaxtirada loo qosalka badan mar waa qoslay mar jacayl baa jiray mar heesaha jiray mar murugaa jirtay isku dhaf buu ahaa aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa inaan wareysigan caawisiisay qaraxadan caawarkan ku wada sameynay waxaan rajeynayaa marar kale oo fara badan is arki doontaan adig iyo asxaabtaydu anigana sidoo kale oo socda asxaabtada maxaa dhacay qof xun miyaani may waa soo salaamay maalna soo salaamay ana teamkayga maalna soo salaamay anigana waxaa sharafiya inaan caawa aan ku horimaado sidaan hore aan u sheegay barnaamijkaagana qayb aan ka ahay waxaan ku leeyahay adigana harjada ku jirta guuleyso asxaabta kugu xirana waxaan leeyahay waxaad haysateen qof aad u qalbi wanaagsan qof walaal ah qof garab istaag iyo wax walbo maaragtay u muujinayso qof walbo oo af Soomaali ku hadlo dadkana jecel inay wanaajiso marka idinkan waxaan dhihi lahaa ilaalsada hodman aad baa mahadsantahay walaalkay Captain Bara thank you so much ilaahay ku barakeeyo asxaabta qiimaha badan meel walba aad naga daawanaysan marba idin tahay in seen ku soo gabagabeynaya saaxiibkiini qaraxada halkan caawa faraha badan iyo sheekooyinka idin soo jeediyay Captain Bara wareysigiisii intaynu ku kulmayna wareysiga xiga waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo Soomaalida nabad iyo dawladnimo dhanka farsamada iyo kaamirooyinku waa Anas K